wanaagsan markale iyo cooking with Xafsa maanta waxaan sameeynayaa macmacaan si fudud loo sameeyay oo marka aniga aan rabo maaragtay marti oo degdeg iyo markay ii soo socdaan ama aan rabo ilmaha inaan wax ugu tuuro maaragtay iska sokorta ku yar tahay oo sokorteeda aniga aan qiyaasan karo aan control karo waxaan ku tuuraa alaabta sida fudud loo sameeyay waxaa la dhahaa duo barduo marka waa kana waxaan brownie oo midii boxka ku jirtay dukaamada laga soo gato loos yar iyo waxaan ku daray kaliya maaragtay shukulaato yar waxaa lagu maayaa maanta oo inaan karinaysay waxaan kala sameeyay ukunta qaybteeda cadeed alaabtan talyaaniga samaysta Marina oo lahaa iyo yacanki waxoogaha aan gaduudiyay dabka xoogaa yar daahiye laakiin waxa u maleynaysaa doolshe afka uu ku dhamaanaya ma sha Allah dii marka qof walaal oo dhalay ama qof walaal ah soo salaamaysid ama dariskaaga aragtid oo kale maaragtay inaad tustid Soomaalida say dad ma sha Allah u yihiin alaabtan u geyn kartaa waxaa leedahay from Somalia saxanka waxaa laga soo gataa dollar store-ka bacda waxaa laga soo gataa dollar store kana dollar store-ka laga soo gataa waxaa la rabaa marna clear finaal noqotid waxyaabaha ay jeceshahay oo maaragtay Soomaaliya macmacaanka Soomaaliya lagu yaqaano inta samaysa bac ku xirto markaas ayaa ka qatarsan waxaana cunaa insha Allah way kula talinayaa ina maaragtay special hadad meelaha North America iyo Europe iyo meelahaas ay joogto waxyaabaha laga heli karo waxaa idin kula talinayaa iidaha kaleeto iidaha noo soo dhow in maaragtay walaalahaaga kaleeto macallimiinta iskoolka ilmaha hadiyadaan oo kaleeto maasha Allah qofka walaalka ah wuxuu garanayaa in aad hawl is soo gelisay oo maaragtay aad soo qiimeysay u dareemaya marka waxaan oo kaleeto insha Allah barta sida maaragtay loo xiro waa wax qurux badan aan jeclahay aniga dabcan lacag badanna kaama qaadanayso qofka walaalka ahna maaragtay aad ay u raali gelinaysaa waxaan quruxda badan oo inkastoo dabcan waxa meeshaan ku wadi jira aysan ahayn wax Soomaaliya aan karsano markasta laakiin waxa adiga samaysan kartaa in hadaa rabto qof ajnabi oo kale ina u geysid waxyaabaha Soomaaliya shishimowgi cunkii biskudkii Soomaaliga xalwadii waxyaabaha kala nooc sambuuski markaas waxa dhigi kartaa waa kana Soomaaliya maaragtay casriyeena snaageena waa kana ayaa dhigi kartaa marka insha Allah wadankeena maaragtay si fiican inaan u soo bandhigno aan markasta isku dayaya in dariskeena haday ahaan lahayd dadka dariska nala ah iyo haday ahaan lahayd macallimiinta iskuulada iyo haday ahaan lahayd ilmaha guriga noo joogo ayaga laftirkooda waxay u baahan yihiin maaragtay cashir dheer u baahan yihiin in la baro Soomaaliya iyo meesha aan ka imaanay iyo maaragtay soo wadan ma sha Allah u aha marka fiirsada sida fudud loo sameeyo Rahmaan Rahiim maanta waxa waaye maalintii macmacaanka Xafsa macmacaan ay sameynaysaa maanta macmacaan yaa ka filanaya laba xabo oo ukunta qaybteeda cad ah aan meeshaas ku shubtay marka haddaad mashiin haysanin muhiim ma aha gacanta ku qasan kartaa laakiin hadda idin sii sheegaya waqti badan ay qaadanaysaa sidii Soomaaliya waxaas oo kale hooyaday ku qasan jirtay saas u qasanaysaa ukunta markay cad noqoto sokortaas tartiib ugu shubaysaa qaadaba mar waa adiga 4 qaado oo sokor camal la iyo 5 qaado ku dar insha Allah waa laba xabo ukun waa qaybta cad ukunta kaliya Marina laha wadamadaana laga karsadaa talyaaniga aan ku abahashaan nanac yaro heer sare noqonaysa ilmaha aad ay uga helaan marka si fiican u qasaysaa aniga hadda mashiinkaas wuxuu qasayay 15 daqiiqo oo isku xigta marka insha Allah heel yaro shiidan aan ku daray kaamira ma aqaan meesha ka baxda qaybtaas laakiin heel shiidan ku dar ama vanillada sokorta ah marka alaabta saas ay noqotay wax yar oo fadhiya noqotay ma jeedaan waa ukunta qaybta cadeyd kaliya iyo sokor tartiib loogu daray saas marka u saar marka afka waxaas yar oo dhooban uga sameey hadaadan bacda oo lagu decorate gareeyo qurxoon aad haysanin dadka qaar bac intay ku shubaan isaas u soo riixaan markaas wax yar qurux badan soo baxo laakiin aniga waxaas dhan waqti isaga ma dhuminin wakaas asaasan sameeyay foornada gelinaysaa waxa ku haynaysaa 1 saac 200 ay u geynaysaa marka hadaa North America meelahan joogto 200 marka u geyso in dabka ku hay 1 saac kare 1 saac karaysa markii 1 saac ay kartana waa dimine meesheeda u daa meesheeda marka u dayso marka ma sha Allah ay ku soo baxaysaa wax aad u fudud 15 daqiiqo qas saacadna meesha ku hay wakaas ma sha Allah haday ka soo baxday way qabowday waxa waa 2 saac kadib waay marka waxa moodaa qafiif culays dhan ma lahan waxa moodaa wax yar oo air waayo aad u qafiifa ma sha Allah laakiin samacaan afkaaga ku dhamaanaya nanaca moodaa nanaca candy cane la dhaho meelaha lagu gado
wuu egyahay maasha allah. haddana waxaan samaysanaynaa icunkii. icunkan aad u fudud yahay, 5 daqiiqa ku samayn kartaa. waa 2 koob oo bura, koobkaas oo sokorta shiidan ah. sokortan shiidan haddaad haysan mashiinka soo qaaday shiido, ama kaliya mooye qaaday tun heelkaas shiidan. heelkaasna aad u jeclahay aniga, waxyaa kasta waa ku daraa. heelkaas shiidan waa ku daraysaa. intaas qaleylka isku qas. markaa isku qasto haafa koob oo koobka yar, koobka barkiisa oo subag ah aan ku daraayaa, iyo koobka barkiisa oo saliida. hal koob oo subaga waa ku darsan karaa, laakiin waxaan diidayaa ma u fiicna caafimaadka subaga, saliidda dhaanta. marka waxaan ku daray koob haafkiis iyo koob haafkiis oo saliida. intaas kaliya lagu qasayaa. intaas si fiican ay isku dhex galaysaa, waa kuuskuusanaysaa. markaasaa koobka haafkiisa oo saliidda ah. aaday u fududahay, markastaa kasoo tuuri kartaa. iidoo kaleeto waxyaabaha qurxoon marka indhaha jecel, waxaan idin tusayaa alaabtan sidii aa maaragta intaa u xirxirtaan si qurux badan ah. qofka walaalo maaragta umusha ah, qofka walaalo hadda dariskaaga haddaa rabto inaa u tagto, ilmaha macalimadooda iskoolka, meelo badanaa geyn kartaa. yacni bacda xunoo lagu soo adeegtay intaad qof hadiyad ugu geyn lahayd. waxaa fiican wax yaroo qurxoon, dukaanka doolarkay taallaa, soo gado. maaragtay 3 kala nooc oo maaragtay macmacaan ah ama fruud ah ama waxyaabo qaar aa samayn kartid insha allah. ku rid macmacaankan aan sameeyey, ku rid dabcan. saasaad marka dhexda dhibicdaas yarta ooga sameynay. saasaa u kuuskuusee, fudayd waaye, ma jeedaan? fudayd maasha allah. marka dhinacii dhexda looga shubaayaan maaragtay cajalada qaybteeda kale waa iga dhuntay, ma arkin, waa la tirtiray. marka dhinacyada yaryar oo hadda waa idin tusi doonaaye, korka uga daadinaysaa meelaha laga soo gato qurqurxoonee jira. kuwaas korka uga shub. haddaad doonti kalar yar dhexda ka mari, sidii aad jeceshaa ku qurxso. aniga dhinacyo yaryaraan korka uga shubo. wakaasaa ma jeedaan foornada markaan geliyey. marka insha allah kanna waxaa waaye barawnida oo baakadaha ku jirta waaye. dukaanka laga soo gataa, baakaday ku jirtaa. waxaan keliya ku habeeyey lowskaas iyo shukulaatadaas yaryar. intaas keliyaan ku habeeyey. marka habeen waxaa maaragtay qurxi adiga see waay. isku qas. ayadana 20 waxaa loo geynayaa 350. dabkaa gelinaysaa ilaa 20 daqiiqo. markay kasoo baxdana adaaba kariya magacaaga ku qoranaysaa. alaab yaroo qadara kaaga soo baxayso. marka insha allah markii maaragtay meelaha la tegaayo, umulaha waa iska badan yihiin, qaraabada waa badan tahay, dariska maasha allah, macalimiinta iskoolka, dadkaasoo dhan maaragtay waxay xaq nooga leeyihiin in maaragtay waxyaabaha waddankeena aan barno ama aan tusno ama aan maaragtay la wadaagno qofka walaalkaa ah. tus maaragtay wax yaroo waqti aa geliya, si hadiyad fiican si. haddaad doonto guriga lagugu imaanayana saxamadaas yaryar akiyaa laga soo gataa. waxyaabahaasaa saaran kartaa kala duwan. maasha allah, martidaada happy soo maaha. watara kuu malaynayan maanta inaa gelinaysaa laguu malaynaa. marka wakaasaa dhinacyada aan ku shushubo ujeedaa kuulaha u eg. dhinac waaye waxaas kuusha u eg. ayagoo kala nuucnuuca yaalaan dukaamada laga soo gataa. waxaa loogu talagalay waxyaabaha in lagu maaragtay markii aad waxyaabaha dubanaysa biskutka iyo lagu samaysto. bacdi ay idiin sheegaayo waatana saasay u duuduuban tahay. doolaraama iyo dukaamada doolarkaa laga gataa. $1 waaye. saxamadaasiita $2 waaye. waxaanoo dhan aa u moodid in ma aragtay aan $100 kasoo bixiyo. waxa waaye $10 ma dhamo, ma fahanteen? marka dukaamada carabta markaa tagta waa aragtay macmacaankooda kala nooca alaabtan intay kusoo xiraan. maalinta iidda $50 $60 ay naga soo siiyaan. macmacaankooda kala nooca intay kusoo xiraan. marka aniga dariskayga waxaan sameeyaa waxyaabahana u xirxiraa iidda. waaba dhaqan bayba iga tahayba aniga. dariskayga ilaa iyo 10 qof oo dariskayga kamid ah alaabtaanaan u xirxiraa. 4 ajnabi ah iyo 4 kaleeto Soomaali ah daris aan nahay. alaabtaana u geeyaa saaxiibaday dariskayga ilaa iyo 10 xabaan xirxiraa. xabad annagaa reebana, inta kaleetana waa wareejiyaa. maxaa yeelay waa wax fiican, waa wax qurux badan, waqti yar geli. maasha allah. maaragtay waddankaaga waxyaabaha laga helo inaad soo bandhigtid maaragtay waa ku qasban tahay si qurxoon. marka waa idinkaasaa hadda kadib bacda xun oo scab food iyo idinkoo la ordaya idin arkin. waxa qurxoona isku ognahay insha allah. wasalaamu calaykum. subscribe gareeya. wixii tala iyo tusaalahan nala sii socodsiiya.